oo ay taariikhdu ku beegan tahay 1dii bishii September 2019 waxaa shir degdeg ah isugu yimid guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland shirkaasi oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Sayid Aadan waxaa laga dooday xaaladda afduubkii wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland loogu geystay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan International Airport ee magaalada Muqdisho isagoo safar shaqo ku mareeyay halkaasi maalinnimadii Sabtida ahayd ee taariikhdu ay 31 August 2019 arintaas oo nagu noqday mid la yaab leh wax raad ahna aanan ku lahayn sharciga xuquuqda mas'uuliyiinta xasaanada leh iyo xaqa muwaadinka Soomaaliyeed sida awgeed dowlad goboleedka Jubbaland waxay walaac weyn ka qabtaan nolosha ammaanka iyo badqabka wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur dowlad goboleedka Jubbaland waxay ugu baaqaysaa cid kasta oo ku lug leh tallaabadaasi shalay xorriyadda looga qaaday wasiirka amniga inay si degdeg ah ugu soo celiyaan xorriyadiisa sidoo kale waxaa hay'adda garsoorka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland ka codsanaynaa iyaga oo gudanaya waajibaadkooda sarreynta sharciga iyo ku dhaqanka nidaamka dawliga inay cadeeyaan xadgudubka lagula kacay muwaadinka xasaanada leh una soo bandhigaan sharciga dalka ugu dambeyn waxaan ka digaynaa cawaaqib xumo ka dhalan karta in lagu dhaqmi waayo xeerarka iyo shuruucda dalka u yaala taasoo wiiqaysa midnimada wada noolaanshaha iyo kobcinta dhismaha qaranka Soomaaliyeed ee meel fog laga soo qaaday والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته